war-saxaafadeed kan oo ay si wada jira u qabteen golaha wasiirada iyo waliba golaha madaxtooyada maamulka Khaatumo ayaa waxaa markaas warbaahinta u akhriyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha bulshada ahna qismaha wasiirka war-saxaafadeed ku socota dawladda federaalka kumeel gaarka Soomaaliya midowga Afrika midowga Yurub jaamacatul Arab iyo dhammaanba dawladaha daneeya arrimaha Soomaaliya ujeedo cambaarayn iyo eedamo lid ku ah maamulada Puntland iyo Somaliland golaha xukuumadda dawlad goboleedka Khaatumo wuxuu cambaarayn iyo eedamo u soo jeedinayaa maamulka Puntland iyo Somaliland oo caadaystay inay isirtaab ku sameeyaan arrimaha koow xuquuqda socdaalka xorta ah ee qofka Soomaaliga ah oo sabab la'aan ah labo wada isticmaalka hanti wadaaga sida dekedaha jidadka garoomada Soomaaliyeed ee ku yaala gobolada ay maamulaan Puntland iyo Somaliland saddex meel marka xuquuqda ka tashiga shacabka Soomaaliyeed ee dawlad goboleedka Khaatumo afar xuquuqda dambi la'aanta ee qofka Soomaaliga ah shan xuquuqda lahaanshaha hantida gaar ahaaneed lix xuquuqda tigidda meel kasta ee gudaha Soomaaliya ka mid ah toddoba xuquuqda ka qayb qaadashada shirarka nabadeynta dhisidda dawlad wadaagga iyo ilaalinta midnimada Soomaaliyeed sideed xuquuqda ganacsiga xorta ah dhammaan xadgudubyada oo ay dawlad goboleedka Puntland iyo Somaliland u galeen arrimo la xiriira siyaasad sidaa darteed waxay xukuumadda dawlad goboleedka Khaatumo ku cambaaraynaysaa isla markaana ku eedeynaysaa madaxweynayaasha Puntland iyo Somaliland iyo maamuladooda faldanbiyada is-hortaaga ah ee xuquuqaha kor ku xusan kuwaas oo ay ka mid yihiin is-hortaaga dhoofitaanka ergada ka qaybgalayaasha shirka ee laga hor istaagay inay ka dhoofaan gegida dayuuradaha Soomaaliyeed ee magaalada Gaalkacyo hantida gaar ahaaneed oo ay ku xanibeen dekedaha magaalada Boosaaso ee ay lahaayeen shakhsiyaad ganacsato ah kana soo jeeda deegaanada Khaatumo inay isku dayaan is-hortaagida meel marka dawlad goboleedka Khaatumo iyagoo ku doodaya meel kastana geeyay in la hor istaago ka tashiga bulshada SSC ee Soomaaliyeed eedeymaha been abuurka ee loo qabtay loo xiray loona xukumay hase yeeshee maxkamaduhu beeniyeen ee loo dhibaateeyay dambilaawayaasha kala ah ila Cabdilaahi Geelle oo ka soo jeeda gobolka Sool iyo Jaamac Maxamed oo ka soo jeeda gobolka Cayn sanadihii 2010 iyo 2011 isku daya iska horkeenka shacabka walaalaha ah ee reer Khaatumo iyo reer Puntland oo iyagu isla ogol in mid waliba aayihiisa xaq u leeyahay inuu ka tashado isla markaana ka xun is-hortaagyada siyaasadeed ee madaxweynaha Puntland iyo xukuumaddiisu raalina iskaga ah wada ganacsiga waa shacabka raalina iskaga ah wada ganacsiga isdhexmarka wada isticmaalka hanti wadaagga ee Soomaaliyeed sidoo kalena waxaa madashan ka hadlay madaxweyne Maxamed Yuusuf oo isagu markaasi nuxurka war-saxaafadeedkan sii xoojiyay waxaan ku darayaa oo nin yar oo hadibkiisa leeyahay in yar oo faahfaahin burburkii dawladda Soomaaliyeed hantida dalka taale waxay hantida dadka ka dhaxaysa haddii dekada tahay haddii wadooyin tahay haddii airport tahay waxa dhulkana waxa lahaa dawladda ummadda Soomaaliyeed baa lahayd dhulkan maxay hantida lagu dhashay ummadda Soomaaliyeed baa ilaa maantana way u dhaxaysaa isticmaalkeedu way ka dhaxeeyaan inta gacanta ku haysa maamuladeedu waxay loo xilsaaray oo ay u xilsaaran yihiin in si habsami ah ay u isticmaalaan laguma noqdo dawlad in dad aan waxba geysan hadii midkeeda leeyahay xabsiyada lagu guro laguma noqdo dawlad in dad u socda inay ayakan talada Soomaaliyeed ka qayb qaataan oo shirweynaha xamar lagu baaqayo in nabadeynta iyo ansixinta dastuurka la iska hortaago dad hadii midkeeda leeyahay ka qayb gali lahaa oo qaasicin lahaa iyagoo isma leh oo shacab leh oo waxgarad kale leh laguma noqdo dawlad in hadii midkeeda leeyahay inta habeenbarnadii loo dhaco guryaha hadii midkeeda leeyahay ciyaal iyo dumar iyo hadii midkeeda leeyahay dad yar oo waxba geysan oo la qalabsado hadii midkeeda leeyahay inta guryaha lagala soo baxo xabsiyada lagu guro waxaan u sheegaynaa maamul goboleedyada Hargeysa iyo Garowe annagu shacbiga waqooyi galbeed iyo shacbiga waqooyi bari midna
haddii midkeeda leeyahay wax dhibaato oo aan u geysanayna ama u qabna ma jirto waxaad ogaataan cidda u eedaysan ee u qoolan hawlaha kan inay yihiin ee lagala xisaabtamayo annaguna aanu kala xisaabtamayna caalamkuna aanu rabno inuu kala xisaabtamo inay tahay maamulada waxaad ogaataan maamulkan khaatumo inuu diyaar u yahay dariiqadii kasta wasiiladii kasta ay waxaas ku soo afjarmi lahaayeen inuu haddii midkeeda leeyahay dhinacay doontaba ha noqotee inuu haddii midkeeda leeyahay inuu suurto gelinayo waxaan ugu baaqaynaa maxay ahaydtay maamul goboleedyada tan ku xusan meesha inay dhaqanka waxashnimada ee haddii midkeeda leeyahay aan waxay dadkan u kordhinayeen inay dadka isku diraan maaha waxba ku noqonaynin iyagu ku soo noqonay waran dib ugu soo noqonaya ah inay haddii midkeeda leeyahay ka waantoobaan waxaan ugu baaqaynaana khaasatan baan dib u xusaya maxay ahaydtay ICRC-da iyo haddii midkeeda hay-adaha kale ha yimaadeen ha arkeen ha yimaadeen haddii midkeeda leeyahay jeelasha Mandheere iyo Hargeysa iyo haddii midkeeda leeyahay Laascaanood iyo haddii midkeeda dadka masaakiinta ee ka buuxa aan iyadoo aan maxkamad la marin iyadoo aan cidi soo eedaynin inta la isaga yimaado guryahooda laga kaxaysto ama suuqyada laga qabto la yiraahdo dagaal baanu ku qabqabanay ama maxay ahaydtay caruurihii yaryar iskuulada galiyay oo rabitaankooda ka hadlay inta la ururiyo jeelasha lagu ururiyo ay haddii midkeeda jeelasha ka buuxaan geesta kale madaxweyne Axmed Cawdi Cismaan ayaa isaguna guntiga gabagabadii shir-saxaafadeedkan ay warbaahinta u qabatay maamulka Khaatumo soo gabagabeeyay iyadoo markaasna ay ku eedeeyeen maamulka Puntland inuu markaasi uu wada farafareyn amaba ducayn ay ku hayaan shacbiga deegaanada Khaatumo hadalku waa inta leeyahay waxba ku dari maayo waana qaybsanay madaxweynaha iyo wixii qoraalana wasiirka sheegay wixii hadalana madaxweynaha intaasay horta noogu dhintay laakiin waxaan ku taageerin lahaa codsigan hadda madaxweynaha iyo qoraalku sheegay oo hay'adaha u dirayo way fiicnaan lahayd laakiin anu kuma dareero waaba u diideen waa kuwii dad Laascaanood ka celiyay Amnesty International ka celiyay inay soo eegaan dad soo arkaan marka xoog bay sheegteen waana ra'yi xumaan arkaa bal haddii ay iyagu maxay tagi karaan meelaha aanu maxaabiista ku xiran tahay tacadigu ka socdo waana codsan lahayn inay tagaan madaxda maamulkaas waxaan marar badan anigu sheegay in ay teerigareynayaan dad caqli xun oo maamula oo waliba anigu anaado inay teerigareynayaan inay isku shaqeeyaan labadaas shacab ee walaalaha ah ee isku midka ah waxna wada lahaan jiray haddana wax wada leh dal iyo dad iyo diin waa wada leeyihiin iyo abtirsiinyaba isku soo wada duuba kulan saxaafadeedkan ay qabteen mas'uuliyiinta kala duwan ee maamulka Khaatumo ayaa ku soo beegmaya xilli dhawaanahan magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug iska hortaag lagu sameeyay qaar ka mid ah bulshada reer Khaatumo markaas ka dhoofi lahaa garoonka diyaaradaha magaalada Gaalkacyo